maanta Kampala ku soo gabagabeynay shir Saudi 4 Agoosto ilaa 5 Agoosto oo maanta ah shirkaas oo ka koobnaa guddi wada jir oo hogaaminayaan labada wasiir oo gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya iyo dawladda Uganda waxaana inta u dheer shir kale ee madaxda ciidamada dalka Soomaaliya iyo Uganda ay ku qabsaneen isla maanta shirka wuxuu ahaa mid wada jira oo labada taliska iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya qayb ku lahaayeen marka shirkaani waxa laga shaqeynayay safgarad in la ballaariyo safgaradkii 2016 ka dhaxeeyay labada dawladood kaasoo taabanaynin arrimaha ciidamada iyo amniga annaga waxaanu ka shaqeynay wixii anaga naga quseeyay arrimaha ciidamada sida labadeena dal u sameeysan lahaayeen iskaashi amni ciidan marka waxaan rajaynaynaa kolley in maalmaha soo socdo waxaanu ka shaqeynay miro dhalkooda in la arki doono